safiirka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya u fadhiya dalkan Kenya Ambassador Maxamed Cali Nuur Ameeri kuwa ayaa maanta kala qayb qaatay munaasabadda ciidda dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkan Kenya kadib markii uu booqasho ku yimid xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii. safiirka dowladda ku-meel gaarka ayaa sheegay in booqashadiisa maanta ay tahay sidii dadka Soomaaliyeed uu kala qayb qaadan lahaa ciidda Carafo oo maalintii labaad dadka Soomaaliyeed ay u dabaaldegayaan. Maxamed Cali Nuur Ameeri ayaa booqasho ku tagay suuqa Islii isagoona halkaasi kula kulmay ganacsatada suuqa isla markaana wax ka weydiiyay ganacsigooda iyo waliba saameynta ganacsiga uu ku yeeshay howlgallada ciidamada ammaanka ee dalkan Kenya ay wadaan. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada xaafadda Islii oo ka warbixinaya xaaladooda ganacsi iyo waliba haddii ay jiraan dhibaatooyin hortaagan ganacsigooda. in waxyaabo badan loogu kaalmeeyaan aad u jeclaan lahayn taasna waxaa keentay meediyaha dawladda Kenya oo ku xadgudbay wixii sheegitaankooda oo waxyaabo badan oo qalad ka sheegay Soomaalida marka waxaan jeclaan lahayn arintaas in aad mas'uuliyiinta kala hadashaan waana mahadsantiin magaceygana waa Xasan Maxamed runta waaye maanta aniga waxaan u imid waxa waaye in waxaas ay sheegaysid inaan waa ben waxba kama jiraan meesha waa la imaan karaa ganacsi ugu sameyn karaa wax laga iibsan karaa Soomaalidu dhan xogayaha guddiga ganacsatada suuqa Islii Mudane Guutaala oo kamid ahaa mas'uuliyiintii xaafadda Islii ku soo dhaweeyay safiirka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa ugu mahadceliyay booqashada safiirka maanta uu ku soo gaaray xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Islii. Bismillahir Rahmaanir Rahiim aniga xogayaha guddiga ganacsatada Islii Business Association waan ku soo dhaweynay ambassadorka xaafadda maadaama aan guddiga ganacsatada waxaan u yimi halkan in uu muxuu ahaa dadka Soomaalida arko niyadda u hagaajiyo u sheego inaan wax dhibaato ah jirin u sheego dawladda Kenya inay raalli ka tahay ganacsigooda iyo shaqadooda wixii ka dhiman la dhamayn doono haddii Ilaahay ka dhigo. safiirka dowladda ku-meel gaarka u fadhiya dalkan Kenya Mudane Maxamed Cali Nuur Ameeri ayaa carabka ku adkeeyay in si aad ugu faraxsan yahay booqashada uu ku yimid xaafadda Islii isla markaana dadka Soomaaliyeed uu kala qayb qaadanayo munaasabadda ciidda. waxaan u imid inaan soo booqdo dadka ganacsatada ee degan Islii iyadoo ogtiil ayaamahan dambe in la dhahay raad laga sheegay in ay halkan aliban karin in ay ka socdeen operation waxaasiyo inaan u sheego dadka reer Kenya iyo Soomaalida kaleba in Islii ay tahay meel labada in ganacsi laga sameyn karo in mataqaana dib ugu jirin ayay ahayd iyo dabcan anoo safiirka inay waajibkeeda tahay in dadka aan safiirka u ahay soo booqdo. booqashada maanta uu ku soo gaaray xaafadda Islii safiirka dowladda ku-meel gaarka ee Soomaaliya ayaa waxaa soo dhaweeyay guud ahaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan xaafadan. Maxamed Cusmaan Cumar Xabiib Royal 24 TV